بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaynu ku soo qaadanaynaa qaabka ansaxa ah ee loo mehersado haweenka muslimiinta ah. Sidoo kale ninka muslimka ah xalaal miiradka ah qaabka laga rabo in uu u guursado markuu haweenka muslimiinta ah guursanayo. 5 wax ayaa loo shardiyaa. Shuruudahaasna halkan ayaynu ku soo bandhigi doonaa. Ku soo dhawaada barnaamijka. Cidda isguursanaysa waa inay noqotaa lab iyo dhadig. Saasaa islaamku qaba. Sidoo kale siiqa iyo qaab loo meheriyo ayaa jirta haweenka oo ah in weligeedu u yiraahdo zawajtuka ama nakaxtuka. Ninka guursanayaana uu aqbalo oo uu ogolaado inuu aqbalo. Waa shuruudaha mid ka mid ah. Zawjka ninka guursanaya haweeneyda waxaa loo shardiyaa inuu tahay haweeneydu guursanaya mid uu geeyo mushrikadna aanay ahayn. Gabadhu hadday haweeneydu mushrikad tahay ninka muslimkii ma geeyo. Ninka weliga ah ee gabadha bixinaya 4 nin oo meel taagan ma oran karo gabadh baan idin siiyay mana banaana. Laakiin waxaa la doonayaa in uu nin la yaqaano gabadha lagu ogaado la yiraahdo hebel baan siiyay. Waana inuusan noqonin markaa nin xajka dawaafayo oo xaaji ah. Haweeneyda guursanaysa iyadana shuruudaha laga rabo waxa weeye in mawaanicu nikaax waxyaabaha inay guursato ka hortaagan sida inay xajka joogto oo kale ay ahayn. Sidoo kale ninku ay guursanaysa inuusan gaal ahayn. Gabadha muslimadda gaal ma geeyo. Sidoo kale gabadha weli la'aan lama guursan karo ama ha yaraato ama ha weynaato ama gabadh bikra ha noqoto ama garoob ha ahaato lama guursan karo. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la tuzawwiju al-mar'atu al-mar'a wa la tuzawwiju al-mar'atu nafsaha. Haweeney ma bixin karto oo weli uma noqon karto. Haweeneyna nafteeda weli uma noqon karto oo isma bixin karto. Sidoo kale laba maqraati shaahideyn baa la rabaa iyo weligii iyo ninkii guursanayay. Intaas waa lagama maarmaan. Nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam la nikaaha illa bi wali. Weli la'aan haweeney ma mehersanto. Saas ayaa islaamku ansax ugu yaqaana marka gabadh haweeneyda la meherinayo. Ama garoob ha noqoto ama gabadh ha noqoto ama ha yaraato ama ha weynaato. Waa isku mid. Sidaas dadku inay u fahmaan baa loo baahan yahay. Gabdhaha muslimiinta ah ee Soomaalida ah ee xilligan hadda aynu joogno fadeexadaha iyo dhibaatooyinku soo wajahayaan waxaa sabab u ah in ay ka leexanayaan qaabka la isu mehersanayo ee islaamka oo ay isu mehersanayaan qaab kale oo iyagu ay samaysteen sida qodbasiro oo kale. Gabadha in qodbasiro lagu guursado oo aan cidiba ogeynba in ninkani qabo. Taas ayaa markuu doono ninkii gabadhii uu inkiraya oranaya kuma qabo. Gabadhiina wax cadayna ma heli karto. Waxaa laga yaabaa iyaga oo wadan ama safar ku jira in ay sida dukaan oo kale ay nafteedii ka dhigtay oo gabadhii ay wadaad meel jooga intay ninkii ula tagto ay tana isku kaaya meheri kadibna ay labadii qof saa isu haystaan isku qabaan. Saasina meher ma aha. Islaamkuna ma qabo. Marka qodbasireed iyo meher aan la ogeyn iyo weli la'aan iyo maqraati la'aan cidda isguursataa dee ismay guursan. Islaamku dariiqu jideeyay ee labkii dhadigu isku guursan jireen may marin. Gabdhaha Soomaalida ah waa inay ka digtoonaadaan ninka aan reerkiina ku weydiisan nin mustaqbalka raba ma aha. Ninka qodbasiro ku guursanaya nin mustaqbalka raba ma aha. Waxaan kaloo rabaa inaan iftiimiyo guurku da' male. Ninku da' kasta oo uu yahay haweeney si kasta ugu weyn guursan karaa. Nabiga sallallahu alayhi wasallam 15 sanadood bay Khadiija ka weynayd markuu guursaday. Sidoo kale Aisha nabigu aad buu uga weynaa sallallahu alayhi wasallam markuu guursanay iyada yareed. Taas waxay muujinaysaa guurku da' male. Ninku isagoo oday oo weyn ayuu gabadh yar guursan karaa. Sida oo kale haweeneydu iyada oo islaam weyn ah oo 70 iyo 60 iyo 50 iyo da'dii doonta jirta ayay guursan kartaa nin 20 jira. Cidna cid ma khasbayso. Haday dadku iyagu is rabaan way isu bannaan yihiin way is guursan karaan. Marka cidna laguma ceebayn karo. Waa nin weyn oo gabadh yar buu guursaday ama waa naag weyn oo wiil yar bay guursatay cidna laguma ceebayn karo. Laakiin waxa ceebtahay waxa weeye qofku in uu isu meheriyo qaab aan islaamku ogolayn oo markaa ceeb iyo fadeexadi ay kaga timaado.
naftaada ayaa islaamku ku ilaalinaya, adiguna naftaada ilaasho. adigoo guursanaya oo mustaqbalkaaga dhisanaya, u mar dariiqa saxa ah ee islaamku uu ku jideeyey ee sharaftaada ilaalinaysa. wasalaamu calaykum waraxmatullah.